wafdi ballaaran oo hogaaminaya gudoomiyaha guddida qandaraasida jamhuuriyadda Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen isla markaana ay ku weheliyaan agaasimaha guud ee guddida qandaraasida jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Cabdirasaaq Tiriye ayaa soo gaaray degmada Garada ee galbeedka gobolka Sanaag. wafdigan uu ujeedka socodkeedu ahaa u kuurgelida mashaariicda ay bixisay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kormeer ku soo sameeyay jaamacadda degmada Garada kaasoo qayb ka ahayd sideeda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland. wafdigan oo degmada ku soo dhaweeyay maayirka degmada Garada ayaa warbixin ka siiyay sida u socota jaamacadda degmada Garada waxa uu yiri sida tan gudoomiyaha guddiga qandaraasada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi la socda waxaan ku soo dhaweeynaa jaamacaddii degmada Garada gudoomiyaha iyo wafdigiisa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa shirka booqashada ay noogu yimaadeen mudane gudoomiye iyo adii waftigaaga waxaan idin sheegaynaa ama warbixintan idin ka siiyana jaamacadda degmada Garada jaamacaddu guud ahaan way yara dhisan tahay halkani waa administrationkii qayb kale oo canteen-kii galaasyadii oo ilaa 12 galaasa waxa la kulmay nasiibdarro koronihii laakiinse waxa weeyaan waxaan rajeynaa inay furanto sanadkan laakiin inta ayaa dib u dhacday dib u ridka ku keentay runtii dhinaca dhismaha xukuumaddu way nagala qayb qaadatay aad ugu mahadcelinaynaa qaybteena nagala qaateen iminkana wixii ka dhiman kordhina waan loo rajeynaynaa dhinaca waxbarashada iyo ardaydaba sida arkaysan jaamacaddu waxay ku taallaa meelo center oo gobolkii Sanaag iyo gobolkii Sool iyo gobolka u dhaxaysa waa meel aad ugu habboon waliba dhinacii xoolaha iyo deegaanka iyo waxyaalahaas oo dhan ay magaranaysa wax fara badan ka tiri doonta haddii magaranaysa cilmiga lagu barto haddii lagu uu soo baxo marka aad baan ugu mahadcelinayaa cid kastoo nagala qayb qaatay bulshada reer Garadagna aad baan ugu mahadcelinayaa iyaguna waxa weeye inta qaybta badankeeda ayay qaateen waxa kale oo jiri kara iyaguna dhismayaal kale oo qandaraasyo xukuumaddu ay bixiso oo iyaguna degmada ka socda oo ay ka mid yihiin iskuulo ay ka mid yihiin xanaanada xoolaha iyagana waxa weeye aad baan uga mahadcelinaynaa iyagana maalgelinta lagu sameeyo ama arrimaha horumarka ee ay xukuumadda Soomaaliland wado safarkeena sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa iyaguna maayirka degmada Garada ugu mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran oo sameeyeen isla markaana ka warramay sida ay u socoto jaamacadda degmada Garada. safarka iyagu wuxuu daaran yahay kormeer mashaariicdii guddida qandaraasyada qaranku ay dalka ka bixisay waxaan ku sugannahay gobolka Sanaag degmada Garada waxaanu joognaa xaruntii jaamacadda degmada Garada oo ay dawladdu ay qaadaan ka geysatay ama contribution ay ku darsatay waxaanu eegaynay oo aanu dheendheenaynay sida shaqadu u socoto shaqo wanaagsan baa ka socota jaamacadda degmada Garada waxaan aad iyo aad mar labaad ugu mahadcelinayaa maayirka degmada Garada aad iyo aad waa madar sare warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Garada.